labadan gabdhood yaa dambiile ah oo haddaba mudan xabsi iyo maxkamad. Gabadha uu madaxweynaha saddex u yahay Xaawo Axmed Xasan waa maareeyaha hay'adda tayadhowrka qaranka. Shaqadeedu waa inay ka hortagto wax kasta oo tayo xun iyo sun ah inay soo galaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Balse taa beddelkeeda, kunteenaro cunto dhacay, daawooyin been abuur ah oo dila bukaanada, maandooriyaal bilibiligu ka mid yahay, caanaha dhallaanka oo sun ah, dhammaan go'aanka dekedda looga daayo oo ay suuqyada Muqdisho ku galaan waxaa gaara Xaawo Axmed. Saddex madaxweyne Xasan Sheekh ayaana shaqadaasi u wakiishay. Ma ahan keliya musuq, waxaa sunta Soomaaliya la geeyo ku baaba'ah jiilal dhan. Boqolkii cunug ee ku dhashay Soomaaliya, 14 cunug ayaa u dhintay cudur. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO warbixin ay soo saartay ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu sarreeya ee dhimashada carruurta ay ka jirto. Badeecadaha dekedda dalka ka soo dega waxaa sharci ahaan lagu xiray inay wataan shahaadada waafaqsanaanta ee laga soo siiyo dalka alaabtaasi ay ka timid, taasi oo caddaynaysa tayada agabka. Hase yeeshee, waxaa hay'adda Xaawo madaxda ay ka tahay ay $80 ka qaadataa kuntineer kasta oo aan wadan shahaadadaasi. Sida ku cad warqaddan, 3 kunteenar ayaa laga qaaday lacag dhan $240, taas oo muujinaysa nidaam lacageed oo aan waafaqsanayn habraaci wasaaradda maaliyadda. Celcelis ahaan, lacag u dhaxaysa $7.2 milyan ilaa $11.2 milyan ayaa sanadii u soo xaroota marka la eego tirada kuntineerada soo gala dekedda Muqdisho. Gabadhaasi madaxeeda waxaa xilkiisa ku waayay taliyihii booliiska dekedda Muqdisho Maxamed Qadar, oo markii uu iscasilay kadib sheegay in cadaadis lagu saaray sii daynta shixnad maandooriye ah. Gabadha labaad waa Sacdiye Macalin Cali, muwaadinad shahaado jaamacadeed haysata, balse dayac dowladeed darteed ku qasbanaatay in bajaaj ay ku xamaalato, oo ah shaqo aan looga baranin dumarka. Markii ay aragtay canshuurta baadda ah, sicir bararka, ciijiye danyarta iyo waddooyinka oo xiran, way diidday inay aamusto. Waxay gashay dembiga ugu weyn ee dalkan, waxay dalbatay cadaalad. 10 maalmood ka badan ayay cadaalad darro u xiran tahay. Waxaad gudub caddayn u ah in nidaamka dalkeenna uu dhiirigeliyo oo uu taajiriyo tuugga wax sumeeya. Wuxuu burburiyaa oo xiraa oo uu ciqaabaa muwaadinka diida in la dulmiyo.